kulankani maanta xarunta dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ay ku yeesheen xubnaha golaha deegaanka isla markaana uu shir gudoominayay duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Farre iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa shaqada dowladda hoose iyo qaabkii loo furi lahaa wadooyinka xiran ee ku yaala magaalada Gaalkacyo iyo la xisaabtanka hay'adaha samafalka ee ka howlgala degmada Gaalkacyo. kulanka ayaa intuu socday xubnaha golaha deegaanka waxay su'aalo dhowr ay weydiiyeen gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Farre isagoo uga jawaabay hadda waxaan soo sheegnay in loo baahay wadooyin la helo wadooyinka markaas hadda wadooyinka soo saartaan cid ka dhaga adeegta oo amarka dawladda fulinaysa maxay idinka qorshaysan kii loo igmaday haduusan xuquuqdiisa helina wuxuu qabtaa wixii karaankiisa hadii hay'aduhu sida hadda ay wagaabiyeen ay ku sii socoto 3 sano soo socda oo seminar iyo mushaar midna aysan helin golaha deegaanka maxaa kaaga qorshaysan ma inaad adigu mushaarkiisiisid ma inay sideeda ku sii socoto su'aashaas aan maarka weydiinaya wadooyinka la bixinay hadda kownoo aha hadda ka hor baan wada bixinay qaar hubaysan xataa waan soo ataageen waana la xirxiray waxaan aad ugu mahad celinayaa oo shacabka reer Galmudug farsama lagu dayaa qofka in laga dhaadhiciyo marka hore wadada inay asaga dan u tahay shakhsi ama laba diidana ciidamada ammaanka maartay hawsha ka qabanaya waana maasantiin Cabdulqaadir ama mushaar aan helno ama aan helin horta waa shaqeynaa dilaayno laakiin waxaan rajaynaynaa waa run weeye golo deegaan oo ayaka la soo doortay ayakuna wax doortay baatii golayaalka deegaanka oo kale waxa laga yaabaa in beela lagu qaybsaday laakiin adinka qof kasto idin kamid waa loo cadeeyay asaga la soo doortay marka in wax maqan yihiin waan isla dareensanahay Xirsi Yuusuf Farre duqa degmada Gaalkacyo ayaa warbaahinta la hadlay markuu soo ilaaday kulanka uu la yeeshay xubnaha golaha deegaanka dayactirka wadooyinka hore samaysnaa in la dayactiro iyo furitaanka wadooyinka xiran jidadba xiran waxay u xiran yihiin lama yaqaano dhagax baa iska yaala ama xero ari baa ku yaala ama qof baa soo galay wadadii ayagana in la furo wax qabadkeena ka mid noqon doonta hadii la idmo waxa kale wax qabadka noogu jira wadooyin cusub in aanu furno hadii la idmo sida wadadii hore aan sameynay oo kale qodobka afraad oo aanu rabno hadii la idmo bilaha nagu soo socdo in aanu qabanno waxa kamid ah waxaan leeyahay siyaasadda dhulkan Galmudug wax siyaasadda oo ka degsaneed iyo qaabka qofka dhulku yeelanayo iyo mulkiyadiisa wax fadhiya may ahayn si traditional oo qaab dhaqameed ah baa loola kala wareegi jiray dhulka marka in la casriyeeyo oo si sharci loo bedelo oo nidaamka la mariyo oo siyaasadda dhulka la sameeyo naqshadna loo sameeyo meelaha magaaladu ay ku faafayso oo waxyaalaha aanu rabano inaanu qabanno hadii la idmo qodobka shanaad waxa weeye biyaha magaalada fariista wixii aan ka qaban karnaa inaanu ka qabanno wixii taakuleyn hay'adaha samafalka aan uga baahanahay inaanu ka raasano Libn Cajiib Xaaji TV-ga Universal